madaxweynaha Somaliland iyo wafdidii ballaarneed ee hogaaminayay socdaalka shaqo ku marayay qaar ka mid ah gobolada bari ee Somaliland oo ku sugan magaalada Burco ayaa waxa uu booqasho ku tagay cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Madaxweynaha Somaliland ayaa kormeeray guud ahaanba wararka kala duwan ee cisbitaalka Burco waxaanu xaaladooda wax ka weydiinayay dadka bukaanka ee jiifa cisbitaalka isagoo madaxweyne Silaanyo warbixin ka dhageysanayay wasiirka caafimaadka Somaliland iyo dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka Burco. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Xagla Toosiye ayaa madaxweynaha uga warbixiyay xaaladda cisbitaalka. Baan kaaga mahadcelinaynaa booqashada soo booqatay cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Waxaan kaloo madaxweyne kaaga mahadnaqaynaa badbaadintii aad badbaadisay cisbitaalkan markii MSF ka baxday. MSF hay'adda la yiraahdo joogtay without notice bay baxday. Dabeetana cisbitaalku wuu xidhmay. Madaxweyne caawimadii madaxtooyadu bixisay ayaa suurto gelisay inuu sii furaado 5 bilood oo min $40,000 ayaa dawladdu xukuumaddu gelisay. taana waanu kaaga mahadcelinaynaa. waxaanu kaloo madaxweyne ku sheegaynaa inaanu 10 wacan ka baranay bixitaankii MSF. markii aanu aragnay dhibaatadaasi wasaaraddu dib ay isugu noqotay waxaanu qorsheynay oo plan ka dhiganay in cisbitaalada dalka aanu ka dhigno in iyagu iswadaan self sustained inay ahaadaan, in haddii hay'ad caawinayso ay timaado caawiso, laakiin marka hay'adaasi baxdo cisbitaalka aanu u xidhmin. waxaan role model ka dhiganay modelka Hargeysa Group Hospital imika isaga iswada lacag aad u wacan oo soo saaray. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa halkaasi ka sheegay inay wax ka qaban doonaan xaaladda caafimaad ee gobolka isagoo sheegay inay mas'uuliyadooda tahay ogaanshaha iyo wax ka qabashada dadka bukaanka. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan imaado hawsha shaqada sharxdeen inaan aragno cisbitaalka isagoo shaqeynayo dadka jooga iyo xilkaas ka saarteen iyo hawsha qabateen aad iyo aad baan ku hambalyeynaya. insha Allah ta'ala anaguna waa ku dadaalana wax la waxeeda la qaban karo inaad la qabano ilaa waxaan ka rajeynayaa in dadkeena iyo ummadeena Ilaahay ka dhigo inuu si caafimaad inuu ka warshaqeyno hawshan aan wada guntano anagu wuxuu waajibkay xilkeena la gudboon inagu soo haga diyaar baan inaan ka qabano anaguna. dhanka kale madaxweynaha Somaliland ayaa intii uu kormeerkan ku jiray waxa uu sidoo kale isaga gudbay wadooyinka waaweyn ee magaalada Burco isagoo indhayn ku sameynayay xaaladda magaalada Burco. dadweynaha reer Burco ku sugan jidadkaasi ayaa madaxweynaha ku qaabilay dareen farxadeed iyo soo dhaweyn ballaaran. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Moto TV caalamiga Royal magaalada Burco.